مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. بشهر مزاياه أكمل، تفوق الشهور سواه، ففيه الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامج كينا أنا وجهد لينو قصنا وموسى عليه الصلاة والسلام. وحامرنا وحيتها إنه موسى لوجيري بح أو وحات أدا وحيتها أدون كينا ونكسن قدر. وحاسفك كوهلنا وحيتها إن لو جم عاو يوشع وهدو نقون دونا النبي. ويبحين وحيقاتين وحيتها ملاي سي أي نقطة ملاي يعني جهية يعني ملاي جاس ماشي أقول لنطو وماشي أوجوج هذا قدر. ويبحين عبار أي سعودين ويدالين مال أي فلسطين. كدب أيا ملاي ماشي أي أوجد تجن أيجو إلوبسن ويسيب بحين هذانا. أيجو عبار صعود أيا جاجا قبتين أو مسوحي وحيته وكوي يوشع عنت النضون عنت أيا غاتنينا عنت النضون عنت النوكين كدب أيا يوشع صح سوحي وحيته أو الله ملايجي ماش محستان فديني ماشيس أيا أوجو إلوني شيطان أيا إلوسي كدب وي بحين ويصول لابتين وحيصول لابتين وحيته ماشي ملايجي أوجو لمية ماشي أي آذن وحي أكين وحيته هاي نين ماشي فديه كدب أيا ويدين waxay ku yiraahdeen waxay tahay qadar miyaad tahay markaas wuxuu waxay tahay ha kadibna wuxuu yiri waxay tahay qadar adigana ma Muuse ayaa tahay oo loo soo diray reer bani Israa'iil wuxuu yiri waxay tahay ha kadibna Muuse wuxuu yiri waxay tahay waxaan rabaa inaan cilmi ka barto iyo wix la mid ah kadib qadar wuxuu yiri waxay tahay yaani ma awooda inaad sabartid cilmi waad iga qaadanaysaa laakiin ma awooda in aad sabartid كدب وحير وحيتها وان صبريا كدب قدر وحير وحيتها وحا اي ويدينين الا انا كاغا شيغا هدو كدب سدا اي كوهشيان كونتراكت اي غلان هشيس اي غلان او صبر وحنا هي ويدينين اي وخلمتا ودن واسراعين ايغو صعدا ايا قدر ينو موسى وحي اكن وحيتها دون قدر وحو سمي وحيتها دونتي ايا loox ka mid ah looxyada oo doonta ayaa mid loox ka mid ayuu siibay wuu ka fujiyay kadibna naw Muuse ayaa wuxuu yiri waxay maxaad sameynaysaa yani sababtoo awal doonyaasha looxyo ayaa lagu sameyn jiray hal loox hadii la siibana yani biya mees ka soo galay kadib naw Muuse uu yaab wuxuu yiri waxay maxaad sameynaysaa waa maxay yani sababta uu qasaanaysa doonta oo dhan kadib wuxuu yiri waxay qadar Soomaalian ku dhin waxa ay weydiinin wuxuu yiri waxay tahay iga qaali noqo safarka ay si guud galan hadana ayagoo socda ayaa hadana yani waxay akeen waxay tahay ilmo قدر المها متكمتة أيود دلي نو مصون نحي والحقيقة وحيتها يعني ما حد سبينيس نفسد 100 دليس نفسدنا قد شنوان محي يعني محاوي وحن كدب قدر والحقيقة وحيتها يعني أنا وحن قبلنا إن هذا وحبي ويدين يوحلا متى نو مصحية كدب وحيتها هي ما هذا كدب بس يعني وحبكم ويدينه ويبحن كدب مال أي آذين magaalo ay aadeen magaaladaas dadka ku nool ayaa waxay ka codsadeen waxay tahay yiraadeen anaga waxaan nahay dad yaani safar ah ee gaajana qabatay cuntana siiya martiya rabna ina idin noqono idinka dadka meesha waxay yiraadeen waxay tahay maya anaga ma idin martigelinayno cunto idin siimayno kadib way iska baxeen qadar wuxuu arkay waxay tahay gidaar oo raba inuu dhaco kadib ayaa wuu toosiyay gidaarka ayuu toosiyay markuu toosiyay kadibna Muuse wuxuu ku yiri dadkan cunta iyo inay ku soo dhaweeyaan ayay ku diideen waa maxay sababta waxaan ugu sameynaysid kadib wuxuu yiri waxay tabeeso isku dhamaatay ani aad waxa ku badan inaad waxba i weydiinin hadana yaani waa marka saddexaad hadda waxaan ku sheegayaa waxay tahay tafsiirka iyo waxyaabaha iyo sirta ku jirta saddexdan arimood ee dhacay حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل.
waxyaalaha aan ka baranayno kulankii Khadir iyo Nabi Muuse calayhi salaatu wassalaam waxaa ka mid ah tilmaanta Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyey markii ay kulmeen Ilaahay wuxuu dhahay aataynaahu raxmatan min cindina wa callamnaahu min ladunna cilma wuxuu la kulmay waxay tahay addoon ka mid ah addoommadeena aanu siinay raxmad iyo cilmi Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay waxay tahay Khadir inuu siiyey laba arrimood oo qof kasto macallin ahna loo baahan yahay si guul u gaaro macallin wanaagsan ku dayasho mudan naxariis iyo cilmi يعني maxay ka dhigan tahay mataqaani waxay ka dhigan tahay naxariistu waa waxa cilmiga u yeelaysa barako naxariistu waa cilmiga waxa u yeelayso yani wax wanaagsan tusaale ka dhigayso qof kasto naxariis leh waa macallin wanaagsan qof kasto naxariis leh waa macallin qofka kale u gudbinayo lagu dayan karo laakiin qofka cilmigiisa adeeg ka dhiga isla markaa u adeegsada meel aan booskeeda ahayn waa qof aan naxariis lahayn lidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo horumariyey waxay tahay raxmatan min cindina wacallamnaahu min ladunna cilma cilmiga waxaa ka horeeya waxay tahay waa aadaabta cilmiga waxaa ka horeeya waxay tahay dhaqanka cilmiga waxaa ka horeeya waxay tahay tarbiyada ayaan ka baranaynaa tarbiyada hagaaji darabtina cilmiga hagaajisid taa kadib waxaa ku xiga waxay tahay إلهي سبحانه وتعالى تلمانت أوبحي نبي موسى عليه الصلاة والسلام هذا الكيسة نبي موسى مكولا كل ما خاضر سلام كذب يو سويدين كذب وحودها وحيدها هل أتبعك على أن تعلمني يعني ميان كرة سئات إيبرتت في رئادات في دقنك ونكسن نبي موسى عليه الصلاة والسلام دقنك ونكسن محيتها إلهي بأمر خضر إن نبي موسى عليه الصلاة والسلام وح أوبر أيضا سلاس أيتها نبي موسى وحوي دين يا عدس وكذل بنا يا خضر إنه وحبر ذلك قفك مكة وحكربت إنك هشيت عدسك ويديسو هذه النبر نو سمي إن سمي ما أهن مي ma ii qaban kartaa ma ii samayn kartaa ma kula kulmi karaa bala ma ila dhigi kartaa arrimahaasna qof qalbigiis way qaboojinaysa qofkan uu ku soo dhaweysanaya lidaalika waa tusaale wanaagsan waa cashar wanaagsan loo baahan yahay ardayda iyo dadka waxa weydiisan dadka weydiisanaysid inay macallinka ula dhaqmaan tarbiyo wanaagsan waxyaalaha saddexaad aan ka baranayna waxaa ka mid ah yani Khadir marka uu dhahay Nabi Muuse calayhi salaatu wassalaam uu ku dhahay way raaci kartaa laakiin laba shardi kuwaad oo ah in aad sabraysid iyo inaadan wax i weydiin ilaa ani wax ka sheeg maahan way israaceen markay israaceen kadib maxaa dhacay Khadir alwaaxi oo doonta ay raaceen ayuu jibiyay yani alwaaxi ka bixi doonta kadib Nabi Muuse wuu awoodi waa inuu dul qaato wuxuu dhahay waxay waxa maxaa u sameeyay sababta kugu kaliftay maxay dadku caawiyay oo ku ogolaa doontooda inaad raacday haddana aad doonto ka dhaawacday isla markaa asaas sameysay maxaa kugu kalifay qofna wuu dilay iyo gidaar ayuu toosiyay waxaana Nabi Muuse awoodi waay sabarka muxuu awoodi waay Nabi Muuse u sabray wax kale ma ahan ibn aadanka wuxuu leeyahay meel iyo xad uu ku sabro laakiin markuu arko waxyaalo khaldan nafta ma ogolanayso waxa khaldan waxay ku leedahay nafta waa khalad waxan ilaahay subxaanahu wa ta'ala xariistiisa ay ka mid tahay in nafteena uu baray waxa wanaagsan iyo waxa aan wanaagsaneyn marka aragtid qof ku caawiyay isla markaana adiga wax khaldan kula dhaqmaysid nafta ma ogolanayso لذلك نبي موسى عليه الصلاة والسلام بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا هاي خواني wax aan ahel maan muxuu ka wadaa mataqaana لأنه nafta iyo dabeecadaha iyo dareemahaaga ayaa kaaga hormarayso markii khalad ay aragto salaam kal qof cunug agta lagu dharbaaxo xitaa adiga dhalin qofka dharbaaxaysa markii waxa arkaysa inaad dhahay maxaa u sameysay waxaan waaya awlaada sababtoo nafta ma ogolanayso waxyaalaha khaldan dalika nafta ibn aadanka waxay leedahay xuduudeeda oo ah inay aqbasho wax kasto samaha wanaagsan laakiin wixii aan samaha ahayn wixii aan wanaagsan ma aqbalayso waa cashar ilaahay subxaanahu wa ta'ala nooga bari muxuu ugu fasiray Khadir waxyaalaha uu sameeyay ficilada xalqada dambe la kala soo insha Allah ta'ala salaamu alaykum حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبات